dhawaan waxaa jirtay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada oo xildhibaanada cusub ee hadda idi bedelaya in cabasha habeen dhaweed ay kasoo yeedhay iyagoo xukuumadda ku eedeynayay in laga joojiyey xaflad ay loo qabanayay xildhibaan guruuje oo kamid ahaa xildhibaanada kasoo baxay xisbiga kulmiye bal hadda tabashadooda ugu horreyn iyo hadaladii kasoo yeedhay sidoo aragtaa anigu xoogaa lumaan hayn mana waraysa because wax qiimo loo baan arkayn ninbaa xisbi ka tirsan xisbi kale codeeyaa xaflad loogu samaynaya dhaqaanada in soo maray maaha waxaase igu maqaalay inuu isaguba diiday yidhi muxuu ahaa waa ma hubo laakiin waa inta miidiyahan ka dareemayey yidhi war anigu cid muxuu ahaa waad mahadsanta ciddii samaysay laakiin nin iman iyo ma yihi haddana war kale laga sheegayey marka intaasaan war ka hayaaye wax badan oo adan dhaqaalo lagu lumiyana ma aha nin xusbi codeeye baa xusbi kale ka codeeyo dabeetana xaflad baa loo samaynayaa maan de anu dhaqan aan aqaani maaha muxuu ahaa beri dhowta waa tii la mamnuucay ee la joojiyey wasaaradda dakhliga soo saartay markii doorashadu inoo dhamaatay raggii soo baxay xafladii ay samaysan lahaayeen waa laga joojiyey haddii wax insecurities inuu keeni karo dee waynaynu iska joojinaa taasba soo may jirin ya markaa tanna kuwaas bay lamid ahayd haddii inagu keenayso yihiin insecurities laga baqayna sheegaan waayo dee wax sabab baa jiri karta waxa booliska u galeen hawsha waxbaa jiri karaa laga yaaba inaan awno xataa ogeyn kuwa qabsanayana aan ogeyn marka muxuu ahaa waan ku raaxsanay booliska inay sameeyaan sidaas muxuu ahaa si kuwa horun bay lamid tahay la joojiyey kuwaaba lagama hadal raggii soo baxay waxaa joogay intaasoo nin oo cadhaysanoo dhacay baa jiray oo isku wada families ahaa inay cadhooyin ka dhalanayn baa laga yaabaa sababta loo toojiyey taas bay ahayd tanna taas bay lamid ahayd baan malinaya maxay tahay fariintaad u dirisid xildhibaanadan hadda fadhiya golaha wakiilada waan qadimayba oo waxaan ku wuri ama xildhibaano xisaanad laa noqon doontaan ama ciilqabayaal xisaanad labaa noqon doontaan waxaan uga jeedaa tafsiirkeeduna ama qaar dadkooda siday wax ugu helayaan wadadii ay ugu heli lahaan maraa noqon doontaan ama qaar xasrad iyo rabshadu ka shaqeeya ayaa noqon doontaan xildhibaanada waxaan leeyahay yaan la idin jahawareerinin qaabkaad dagaamadiina wax uga qabanaysaan maaha kuwa deegaanka keliya mid walba qaabkaad u maraysaan qaab degan oo idinkoon ciladaysnayn ya sidii wax idinku hirgeli lahaayeen muxuu ahaa inaad faligeed qabataan ha ku dayan inaad dadka qaarkii muxuu ahaa ceeb iyo xumaaqod iyo xabaalaqod un ka shaqeeya yay dhaqankiina noqonin soo maad garan ha bilaabina inay noqdaan qaar dib ugu noqda dadkii soo doortay oo u shaqeeya oo aanay huhaa iyo been iyo mal-awaal ku noolaanina ay dhab ahaan u dareemaan baahida taala degaankooda wixii hore looga qabtay mooyo wixii dambe inay qabtaan